sharaf weyn inoo wada maanta inaan markhaati ka nahay markhaati ka wada nahay maalintan taariikhiga ah oo aan dib ula soo wareegnay maamulkii iyo gacan ku haynta hawadeena waxaa arrintaasi runtii kuma imaanin sidii wasiirka sheegay wax iska nasiib ah waxay ku timid shaqo badan iyo juhdi badan oo la geliyay waxaa mahaddeeda iska leh ilaahay baa mahaddeeda iska leh ilaahay ka sokownaa waxaa ugu horeeya oo mahaddaasaan siinaynaa iyo creditkeeda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha iyo maareeyaha duulista iyo guud ahaan howlwadeennada wasaaradda waxaan kaloo aan uga mahad celinaynaa hay-adda ICAWA oo runtii la shaqaysay wasaaradda la shaqaysay muddo dheerna soo maamulayay hawadeenna iyo siday u xafideen oo ay uga shaqeeyeen in ay noqoto hay-addan ay noqoto hay-ad qalabkeeda iyo tababarkeeda iyo shaqaalaheeda sidii la rabay u haysa haddana runtii waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan waa dadkii 27 sano ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi haddana u soo wareegay magaalo madaxdii Soomaaliya Muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeenna runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay kaliya aqoon ahaan maahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaan waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dawladdan ay waday 9 bilood ugu dambeysay oo runtii aan gelinay juhdi weyn iyo shaqo badan iyo waqti badan aan gelinay sidii aan ummadda Soomaaliyeed aan mas'uulka ka nahay aan ugu adeegi lahayn hawshan aad arkaysaan maanta waxay ku timid wada shaqayn waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dawladda dhexdeeda waxaad ogtihiin haddii mar khilaaf yimaado iyo isqabqabsi uu yimaado wax alla wixii hore loo waday ama wax alla wixii hore u socday inay joogsanayaan taas waxay keentay marka waxa la yiraahdo continuity in hawshii hore loo waday aan sii xoojino meesheedii aan ka wadno haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa annagaana controlna tani waa bilaaw oo ah inaan xoojino qarannimadeenna inaan xoojino waxaa noogu xigi doona insha allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqa ah inaan soo ceshano controlka baddeenna muddo kooban dhexdeeda aan soo ceshano oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaan ku yiraahdaa kheyraadkeenna maalin iyo habeen gurata inaysan jiri doonin cid istiraada meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yiraahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha Allah hadduu la yiraahdo waxa iyada naftigeeda aan ku howlanahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno controlka iyo ilaalinta xuduudaheena bacdama aan nahay dawlad qaran ah dad qaran ah waxa weeye inaan controlno baddeena inaan controlno hawadeenna iyo inaan controlno xuduudaheena waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaan qaran taasna waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan ka shaqeynayno oo ah inaan soo celinno amniga oo aan amniga ka shaqeyno taasna waxaa markhaati u ah ilaa hadda 9 bilood ugu dambeysay inaan xoog saaraynay sidaan isu abaabul lahayn sidaan tababarro u siin lahayn sidaan qalab u keensan lahayn iyo wixii agab ah loo baahan yahay inaan xoojino amnigeena sidii aan xoog u saar lahayn magaalada Muqdisho ee noqoto magaalo ammaan ah taasna runtii waxa weeye waa wax aan oran karo muddo yar gudaheeda iyada naftigeeda inaan ka gaari doono guulo
qolooyinkan nabadiidka ah mar kale halkan waxaan ugu baaqayaa Soomaaliya waa dhaqaaqday Soomaaliya way socotaa istaagi mayso ciidankii qalabka siday waa diyaarsan yahay maalinta ka dambeysana waa sii xoogeysanayaan waxaan idin sheegaynaa inaad ka baxdaan waxa aad ku jirtaan oo ah inaad xasuuqdaan ummadiina iyo shacabkiina inaad ka tanaasushaan oo aad dib ugu soo noqotaan ummadiina oo aad qayb uga noqotaan horumarka iyo dhismaha dalkiina annagu waxaan ballan qaadaynaa sidii aan ku cadeynay oo aad markhaati laga yahay ciddii noo timaada oo soo dhiibta inaan siino wax alla wax u baahan yihiin deganaansho iyo sharaf iyo xurmaba ciddii soo dhiibta oo hadda mar labaad aan ugu baaqayo maxaa yeelay waxaan ognahay ciidankeenu inuu hadda u diyaarsan yahay shacabkeenna u diyaarsan yihiin inay dib u soo ceshadaan qarnimadooda inay dib u soo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda waxaan ugu baaqayaa mar kale qolooyinkan shabaabka ah inay ka soo noqdaan waa la maray hagaamiyey waa dhallinyaradeenni weeye waxba ha ka walwalina waxaan idiin sheegaynaa inaad dib ugu soo noqotaan ummaddiinna taasoo aad ku helaysaan nolol iyo karaamo iyo xushmo waxaa kale oo iyada naftigeeda noo haray oo diiradda noo saaran inaan adkayno dimuqraadiyadda oo ay kow ka tahay inaan dhammaystirno dastuurka inaan dhammaystirno dalkeenna waxaa keliya maanta uu ku ammaanan yahay waxay tahay inaan nahay dal dimuqraadi ah waa inaan xoojinno marka bacdama aan soo aragnay qaab kasta oo dal lagu xukumo aan soo aragnay inaan xoojino dimuqraadiyad aan ixtiraamno sharciga taasna waxa weeye inaan dhammaystirno dastuurkeenna taasoo aan u yegleelno ama aan u diyaarino 2020 in la galo doorasho xor ah iyo qof iyo codkiisa ah waxaan aaminsanahay inaan gaari karno maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaynaa oo aan ka cibro qaadanay wax alla wixii hore nooga halaabay saas darteed dib ugu noqon mayno wixii naga halaabay waxay noo tahay cashar oo aan wax ka baranay taasna waxa weeye waa waxyaabaha aan oran karno inaan ummadeenna aan u horseedno arrinta kale oo muhiimka ah waxay tahay oo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray inaan bedelno oo kulligeen aan u diyaar garowno inaan bedelno dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray oo aan kow iri wax alla wixii khilaafaada oo dowladda dhexdeeda ah in la joojiyo dowladda dhexdeeda waxa weeye waxaan ognahay sanad walbaba waxaa jiri jiray runtii wax dalka dib u dhiga yaa jiri jiray dowladda dhexdeeda waxaan ka ilaalinay oo anigu aan ugu horeeyo iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa innaba ha yaraatee wax isqabqabsi ah taasna waa bedelnay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan wax ka baranay wixii hore u dhacay oo dhibaatada noo keenay dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray oo aan doonayna wax ka bedelno waxay tahay in qofka mas'uulka ah inuu matalayo qaran uu matalayo inuu matalayo qabiil mar walbana ku celiyaa qofka mas'uulka ah meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu sareysa wuxuu matalayaa qaran haddii uusan qaran matalayn waa inuu hadda hawshaas hawlka inuu iska raadsado weyn taasna xafiiskay ka bilaabatay xafiiskayga waxaan muujiyey inuu yahay xafiis qaran inuu yahay oo dhaqamadii hore lagu yaqaanay innaba ha yaraatee aan lagu dhaqmin oo aan joojinay golaha wasiiradan iyaga saas oo kale laga rabaa inaan la oran xafiiskan waxa iska leh reer hebel uu yahay xafiis Soomaaliyeed oo Soomaali danaheeda loogu adeego dadka waa inaan barno haddaad tahay mas'uul haddaad tahay wasiir haddaad tahay maareeye waxaad u shaqaysaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan tan saddexaad waxay tahay hawlaha musuqmaasuqa oo runtii dowladdeennii dib u dhac weyn ku sameeyey oo noo ah caado taasna waxaad hadda markhaati ka tihiin hay-adda maxaan ku raahdaa dhaqaalaha ee adduunka ee IMF inay qirtay habka aan ku soconno oo maareynta maaliyaddeena inay saxsan tahay oo aysan jirin wax musuqmaasuqa aysan jirin waa dhaqan cusub oo iyadana loo baahan yahay inaan ku soo dabaalno dowladnimadeena maxaa yeelay waxaan ognahay haddii aan xoojinno musuqmaasuqa
inaynu dowlad noqon karin maxaa yeelay qof walba meesha uu joogo yuu ka goosanaya wixiisa dowladnimadana waxa weeye wax la isu geegeeyay weeye oo qof walba uu qayb ka yahay looguna adeegayo danta guud ee Soomaaliyeed iyo adeega ummadda Soomaaliyeed waana waxyaabaha lagu kala hormaray caalamka haddaad doonayso burbur haddaad doonayso sharci darro waxa weeye inaad ka shaqayso musuqmaasuq weeye saddexdaas arrimood waa saddex dhaqan oo aan doonayno inaan bedelno anigu waa bedelay xafiiska qaabka u shaqeynaya wasiir ra'iisul wasaaraha waa bedelay wasiiraduna waa ku qasban yihiin inay bedelaan ilaa meesha ugu hooseysa taas haddaan gaarno waxaan idin sheegayaa inaan la tartamayno caalamka intiisa kale waa u diyaar garownay diyaarna waa u nahay kulligeen inaan la jaan qaadno dowladaha caalamka hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa midnimada Soomaaliyeed waa waxyaabaha kulligeen aan ka wada hadalno waxaa loo baahan yahay inaan xoojino iyadaa lagu gaari karaa horumar iyadaa lagu wada shaqayn karaa waxaa loo baahan yahay inaan iyadana xoojino kaas oo ay ku imaanayso midnimadaas dib u heshiisiin oo aan si dhaqsi ah u bilaabayno hawshaas dib u heshiisiinta waa ku mahadsan yahay mudan xaaf hawshii ugu dambeysay uu qabtay oo isaga galmudug iyo ahlu sunna waa ku mahadsan yahay gacan weynna waa ka siinay haddana waxaan u gudbaynaa meelo kale oo maxaan ku yiraahdaa gobolo kale iyo degmooyin kale iyo magaalooyin kale aan u gudbaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh